haweenka ka ganacsada jaadka ayaa banaabax weyn ka sameeyay magaalada Laascaanood maanta gelinkii hore iyadoo ay socod dheer ku soo mareen shaariciyada waaweyn ee magaalada Laascaanood dibadbaxan ayaa daba socday kadib markii wasaaradda maaliyadda ay cashuur dheer ku soo rogtay ganacsiga jaadka ee magaalada Laascaanood yimaada qaar kamid ah haweenka ka ganacsada magaalada Laascaanood ayaa cabashooyin xoogan ka soo saaray waxayna ku baaqeen cashuurta saa'idka laga soo saaray ganacsigooda ay laga joojiyo samarkaana dib loo eego maadaama ay qaadi karaan cashuurahaasi magaalada Laascaanood waxa maanta gelin karo isugu soo baxay socod dhaadheerna ku soo maray haweenka iyo dadka ka ganacsada jaadka kuwaas oo dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin cashuuraha dheeriga lagu soo rogay jaadkooda ay ka muujiyeen waxaan ka hadlaynaa dadweynahan aad u ballaaran ee ku nool magaalada Laascaanood waxay ka hadlayaan arinta gabadha Samsam Cabdi Aadan ee haysata maaliyadda cashuuraha waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba oo aan ku nuuxnuuxsanaynaa aan ku noqonaynaa annagu waxaanu nahay dhulbahante idina naba gubaysan daaradna laba gubaysan ilaa daraawiish ilaa Sayid Cabdulla Xasan ilaa wiilwaal taariikh soo jireena weeye waxaan u sheegayaa waxa maalin walba soo dhawaada waxa ay ku joogsado qof Soomaaliland kamida maanta wax waqooyi la yiraahdo iyo wax la yiraahdo Soomaaliland midna ma ogolin haday Samsam leedahay Laascaanood qaadka lagu cashuuro burcaya la gudbin burca horta Laascaanood ka tirsantahay Samsam waxa uu sheegtay dhaqaalaha Soomaaliland ka soo baxa in bisu musuqaadka la siiyo shaqada madaxweyne Siilaayo halka waa halka cod ka heshay waa halka doonaysay hadaa Samsam doonaysay inay ku joogtana Laascaanood cod ugu soo xaagi maysid Laascaanood عضو من ميسد وأنا كعينا أنا ويربان ملين تكاد ملين وحنو لنا وقعد كان محمد دوكانو محمد هدادي في الصي هذا تنقص هلاقي ميسد عض سبت الحركة كويسة ستة دقيقة حتى هذا نقول لنا عشورته أنك هلا يا عشورته قاد كان محمد شبوتا وصعنا يا ونصعن دونا قاد كأنه في دين لنا ولا ترتبيا وأنا الهدية قبل عشورها ودر صدي أو يري محمد شبوتا وشاتكيسا صوبا بي او شاتكا maxaan ku yiraahdaa in afdiin la hasan insha Allah lacagtiisa qaadka kaliya maaha badda iyo barigaba waa socota wax ka maqalna ma jiraan sida ku ganacdo gabadha cashuurta dhulkay taala saacadan inta laga bilaabo dhulkay taala Laascaanood anaga ka wasiira anaga ka madaxweynaha oo anaga ka askar oo anaga ka ciidana Soomaaliland ma naqaan dalka iyo diinta iyo dalka bay isaga iskale dhirbaaxada haday ka noqon waydo wasiirada Samsam dhirbaaxa xanuun kulul baa ku dhacaysa ha ka noqoto oo mar labaad ka noqoto oo mar saddexaad ka noqoto oo ayna xaaj Maxamed Saafar gelin oo qabyaalada anaga dayso oo waxaan afkeeda ka tiri ha ka noqoto qaadka khatar lama iskale da noqoto Allahu Akbar Soomaaliland ka tiri mayso ka shaqayn mayso haday ka noqon waydo way ka urursanaysaa Soomaaliland wixeeda Maxamed baa ka talinaya hadii maamulka Soomaaliland isiri dhulbaanta uu jawaa habqankiisa ku yimiyo mas'uuliyadiisa ku yimiyo bureauqraatiisa ku yimiyo wax garadkiisa ku yimi wax ka jira ma jiraan waxa weeyaan deegaanka iyo dalka iyo calanka iyo ciidu intuba waa khaatumo garoonka khaatumaale Maxamed Cabdi Caraale waa ina yar oo da'yar oo ilmo yar oo magaalada u dhashay isaga ka shaqaysanaya wasiirka Samsam haddii uu ina aftilo hoos ugu sheegay korbaan anagu ugu sheegnaa waxa hoos lagu sheegay gabadha iska masax amniga Soomaaliland amniga sugato annaga ninkii dhaaf ku yimid gaaridu dhibasa waxba annaga nooma waxa weeye Maxamed Shabutaawi tan isaga u dhashay isagana ku ganacsanaya isagana xaq u leh cidna u daba fadhiisan maayo haddii ay taasi ay suurtoobi weydo isaga ka tagay kuna fudud dibna ugu soo noqon maayo waxaa xusid mudan in saraakiil ka socotay wasaaradda maaliyadda ay isdheheen soo gaadhay maanta gelinkii hore magaalada Laascaanood hayeeshee dablay hubaysan oo jaad wadayaal ayaa jidgooyo u samaystay kadib israasaaseen dhexmartay saraakiisha iyo maleeshiyaadka soo abaabulay ayaa markii dambe ciidamada militariga gurmad u sameeyeen ay soo galiyeen gudaha magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ee Laascaanood waxa garoonkeeda diyaaradaha ay golayeedhay ka soo dega maalin kasta laba diyaarad oo jaada kuwaas oo ka soo duulay dalka Kenya isla markaana jaad ganacsi keena magaalada Laascaanood balse mid kamid ah diyaaradaha oo laga leeyahay gobolka Sool ayaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayadu cashuur dheeri ku soo rogtay diyaaradaasi Maxamed Ahmed Jaamac Maxmed Bidaanshe حقيقة بيها عالمي جاي كلسن تي في ما قدر لا سعنود